maanta waxaynu baranaynaa qaabka loo sameeyo drop down list. halka waxaynu ku haysanaa tablekan halkan waxaa noogu qoran maartay country single iyo married. marka daytada halkan aynu soo gelinaynaa, sidoo kale waxaynu soo gelinaynaa halkan iyo halkan waxaynu soo gelinaynaa wadamada, sidoo kale halkan waxaynu soo gelinaynaa laba option kale oo yes iyo no oo kale waxaynu dooraynaa marka hore halkan, kadib waxaynu tagaynaa data, waxaynu tagaynaa meesha ku qoran tahay data foundation, halkan waxaynu ka dooraynaa list, kadib waxaynu ku dhufanaynaa falaartan kor jeeda, waxaynu soo dooranaynaa halkan ay ku qoran tahay wadamada nagu qoran yihiin, kadib waxaynu ku dhufanaynaa falaartan soo jeeda, inta kadib waxaynu ku dhufanaynaa okay. marka sidaa waxaa noo soo galay drop down list oo wuxuu ka kooban yahay wadamadii marka noo soo furo wadamada noo soo baxaya. sidoo kale si aanu tan sameeyno single hoostiisa tagaysaa waa dooranaysaa, kadib waxaad ku dhufanaysaa data, kadib waxaad dooranaysaa data foundation, inta kadib marka waxaad ka dooranaysaa list, kadib halkan waxaad ku qoraysaa yes comma no, kadib waxaad ku dhufanaysaa okay. sidaas waxaa noogu soo galay halkan option ah yes iyo no. sidoo kale waxaan hoos tagnaa married, kadibna waxaanu tagnaa data, waxaanu kasii dooranaa data foundation, waxaanu ka dooranaa halkan list, kadib halkan waxaanu ku qoraynaa yes comma no, kadib waxaanu ku dhufanaynaa okay. sidaa daraaddeed halkan waxaa noo soo gelaya option ay ku qoran tahay yes iyo no. tusaale ahaan haddii aan rabnayna faadimo aynu buuxino horteeda tegaynaa country waddanka aan soo dooranayna, waxaan leenahay tusaale ahaan waa Suudaan, meeshana single ku qorantay waxaan kasoo dooran karaa ma guursatay mise ma guursan yes oo kaleeto, halkana married ku qorantay waxaan ka dooran karaa no. sidaas si lamid waxaan dooran karaa warsamo, waxaynu soo dooranaa in Soomaaliya kasoo jeedo ma single baa mise ma guursaday, halka waxaan kasoo dooranaynaa yes. waxaynu tagaynaa oo kaleeto halkan hakaan, waxaynu ka dooran karaa inuu kasoo jeedo Djibouti, waxaynu ka dooran karaa halkan inuu yahay yes oo kale, halkan waxaynu ka dooran karaa no. sidaas si lamida dhammaan dadka meesha inoo yaalla oo dhan qaabkaasi aynu maaragtay usoo buuxin doonaa ama usoo buuxin karnaa. marka saaxiibayaal intaas kusoo gabagabeynaa casharkan yare kooban oo ku saabsan qaabka loo sameeyo drop down list. fadlan muuqaalka like sii saar. salaam.